aad baan idinku mahad celinayaa tartamayaasha taageerayaasha garsoorayaasha dhaxan baa soo dhacday anoo yar dareemaya inaad yar caajisteen aad gacmaha laabateen afka aad xidhateen waxaan keenayaa injineer cabdisamed mooraal iyo saxaabigula soo dhaweeya laakiin mooraalkii injineerka weli ma maqlo aad baad u salaamantihiin injineerka ma tartamaysaa mise adna ma tartamaysaa ku soo dhawow mister cabdisamed oo lagaaga bartay inaad tahay ka qosliye ama majaajilista weyn waxaanad halkan nooga ballan qaaday in aad ka qayb gali doonto tartanka oohinta iyo tartanka qaniinyada marka iyo waliba khuurada caawa markaa waxaan u malaynayaa inaad ku tartami doonto khuurada mise oohinta aad baad u mahadsantihiin dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay tartankan munaasabadda lagu qabanayo laguna guubaabinayo suugaanta barnaamij aad u fiican dhaqanka in ay dhallinyartu ku soo korto waayo heesaan arkayey gabayadan arkayey geeraaradan arkayey dhaantadan arkayey jeeskan arkayey raabkan arkayey dhammaanba aad buu u wanaagsan yahay waayo qaabka ay u ciyaarayeen run ahaantii kolley gabayga axmed budulle uu joogaayo dee anu gabayaa ma ihi moogtahay madaxii dhaantadaaba jooga inkastoo aan u sheegay inuu dhaanta jayna ay noo qaadu marka ilaa haddaan ka sugaynuu laayahay kolley gabaygu inta badan waxyaabo badan buu tilmaamaa hadda qaabka qoraalka oo kaleba daba u dhigan yahay gabaygu hooyaala sida loo soo socday si hadda u samaynayeen waa si steeb ama jaranjarooyin la ugu soo dega qofka gabayayay ama uu gabaygu hooyaalay markuu bilaamo haddana ujeeddadii cidda uu yahay cidda gabaysa dabadeedna waxa uu socdo saa u soo talo kolka dambe ku gabagabeeya soo maaha waxa weeye sida dee buugaba loo qoro dee waxa weeye title baa jira objective specific lama qoro saasoo gabaygu marka u dhigan yahay waxaan ku soo noqonna haddaba barnaamijkeennii mujaajilada iyo kolley waxaanu malayn goordhoweydna weriyaa la matalayay oo halkan weriyaasha waa runtooda waaba runtii weriyaha laftiisa uu isku ekaysiiyey oo waa sidii dee anigu baan warka u akhriyayey halkani waa redio kaaraamardho aydun ka tegaysanayseen www.tiinciin/buureed hay-adda la dagaalanka xaraarada ayaa sheegtay inay jasiiradda basuudi xaraaro ba'ani ku dhufatay taasi oo lala soo gaadhay sheexnada isugu jira taajaro aawaday dhaadheer iyo buureedba haddaba iyada oo hay-adda xaraaro la dagaalanta ay dadka u dhistay taandhooyin ayaa dadweynaha nin u hadlay afhayeen u hadlay dadkay xaraarada ku dhufatay ayaa waxaa la sheegay ina uu aad iyo aad loogu soo dhoweeyey laakiin jiqilooyinkan ficnicladay ka maqan yihiin taasi oo uu sheegay inuu caafimaadkooda mirqaaneed isa soo tarayo waqtiga ka dambaysa niman dabeera jira ayaa la sheegay inay ku qabsadeen gargid maanta ay ku qabsadeen taasi oo lagaga hortegay wadhafka wajaafka xawdka qaniinyada qanjiirada haraatida hantisada habaarka budka daran dooriga u dhacaya dameeraha raadalka dhunta marka qaabka warku wariyuhu u sheegayay waa saasuun oo war kala aday warkii caadiga soo maaha khuuradu kolley dhowr bay u qaybsantaa sida la sheegay khuuradu dhakhaatiirta ku takhasusay khuurada ama jarmalkii wax ku soo bartay khuuradu waxay ka kacdaa 3 nooc baa la yidhaha midi waa sanka midna waa madaxa korkeega midna waa oo tatoonkeedu mogtahay uu aadka u jiidmo yidhaa kaasi waa ninka isagoo cadhoonaya seexday baa la yidhi ka isagoo faraxya seexdayna aayar bay socotaa sow maaha aduu noocyo badan bay u qaybsantaa nin baa waxaa la yidhi waa isagoo safaroo suu socday baa kibis uu gaajoonayay baa la yidhi kolka xeedho weyn baa la soo dubay oo xeedho kibis ah ayaa la soo buuxiyey xeedhadii marka ila qabay islaanta la yidhaha la qaada dad baa isla qabta mogta marka xeedhada la saarayo dhowr bay ahaayeen waa tan saacadda ku dhex go'da markay cunayaan maaragtay saacad baa kaga go'da
joojiya saacad baa ku go'day waxa weeye saacad baa kaga dhaxlumaysa way kibista weynideeda hal la joojiyo adoo soo waday bay ninkii martida u haabay islaayeen baa leeyahay markaas uu lugta fuj ku yiri lugta ku marmay mogtay alla lugna u dhidbaday lugna uu kugu maray heeseen yeela lugna jarso ka dhigay waxa dhacay islaam baa waxa la yiri waa dibadda ku dhimatay dibadday ku dhimatay show islaant markay dibadda ku dhimatay in la quraamo oo de xoolo loo qalo oo loo duceeyo la rabay ilaa in dibaddana disti weynba ma taalo dibaddiba disti weynee saylad ba laga waayay islaantii waxa marka la sameeyo la garan waayay meel lagu duceeyaa ma jira islaantii waxa la iibiyay buskud yar yar iyo burger iyo iyadoo saa loo jeediyay baa I am sorry Allah u naxariis dib baa loo quraamay magaalada jijiga lagu qoraa waa la qalleeyay quraankeed waayo dad uu socon waayay ma buskud baa quraan noqonaya iyo burger iyo cake waa hagaag tartanka horta uu dhib badan yahay tartan wax ka dhib badan ma jiro tartanka shayga adoona garanay hadda tartanto waxa weey marka dambe adoo ama isbitaalka yaalba lagu arkay nin baa waa tartamay kabuuska tolan jiray isagoo kaba tolaasuu kaba u tolay baa nin saaxiibka u yimid oo ku yiri niyow tartan feed baa la soo dhajiyay mogta kolka adiguna waa adigana xoog baad ka yar leedahay waad isbedeli noloshaadu way isbedeliyeen ma intaad waxaan tultulaysid meesha iskaga tagtid uu qaatay fikirkiisa fiican buu la qaatay islaantiisuna halkan ay fadhidaayo waryaahe waara isku ciyaarin wax feertay maysidee malaanu baadiga adagtay wax ismoysanaad wax maanigu waligay waan feertami jiray budo feerka waan yaqaanay adigu ka dhaadhiciyay u waday gabar xaaskiisii ha ka dhaadhiciyay sida u socday ayay wuxuu yiri waxa way waa dhow markaan feerka badiyo waxaan noqon doonaa isboortiga baana qabsan doona saxaafadaha ay wareysan doona yartaneedka la igu soo qori doona waa internetka magta yartaneedka la igu soo qori doona adu meeshaba ana wuxuu yiri waxaan noqon doonaa khatar ah kolkaasa tartankii waa la soo qoray oo waa la soo duwan galiyay waliba gabar islaanta nin ay wax isku yihiin ba qolada garsoorka ahayd kaasna ana kugu sheegay bay tiro xodhi ma la dhigtan ugu sheegina uu ku caawin kara iyo adu soo galun meesha ha soo galo wuxuu yiri marka waxa la qaadanaya tartankana 100,000 oo bir baa la qaadanaya ninkii tartanka badiya xaaskiisii uu kaxeeyay oo adu diracna uu soo amaahdo ka bixin doona feerka isna koor iyo xub ka soo amaahday oo soo labistay isagoo labisan wuxuu sameeyay waa la wareystay markii hore wariyay haye ma diyaar garooday waan diyaar garooday 3 diyaar garoobiye maraq baa la kariyay diyaar baan ahaa wiisad keenay mogtay koorkana waan ka soo iibsaday buudo waan ka sii kireystay buudo amaahdan iskaga bixin doona iyadana dharka waan kaga bixin doona amaahda macaltii amaahda leed baa feerka timid siduu u socday buu soo joogsaday wuu soo diyaar garoobay bahashii gacmaha loo soo galiyay nin xoog weyn baa ka soo baxay una filaynba kolkaasuu dib u siqo ninkii garsooraa ku yiri waxba islama hayay waxa weeye ninkan adiga ilaahay baan kugu aaminay u gariiraya mogtay feerkii horeysay waa ka madaxa dhulka ku dhuftay hatta talaabadii horeysay waa ka lagu dulqalay maaliyadii baa dul fadhida mogtay way balfinaysay dul fadhiisatay balfinaysay kolkaas loo tiriyay 1 2 3 adu waxa la wadaba 999 mikrofon baa la qaatay 1888 naaninku u dhintay in yar buu dhaqaaqaya isugu baytir way sugtay yar markii dambe kacay kolkaas dib u gurtay oo niman garsoorayaasho sida Axmed Budul iyo fadhiyo kale ag tagay wuxuu yiri walaalayahay igu sii deynina ninka waxa weeye bal si uu tagaa wuxuu ku yiri markii dambe 100,000 hadii aad isiiso 75 baad u qaado 35 adigu ninka kale ku leeyahay seerigayga afuuf war hore u sii soco dib uu socday dib markii dambe lagu dhuftay hadana dhulku ku dhacay markuu dhulku ku dhacay buu kacay kolkaas la yiri buugi isagoo bestiib ku islaantiisa buugi soo qaad waan tartarmaya halkaana waxbaan ku aasay halka waxba la iga lahaa markaas loo tiriyay 1900 maxay tirada la tirinaya kolkaas uu yiri milyan hada tirana ma kacay iga dul dhaqaaqa saasay ahayd waa hagaag kullay deegaanku waa kii qabtay xaflad beher sabooj oo dhammaan qoomiyadaha Itoobiya oo dhan isugu imanayaan qoomiyadaha waxa kamid ahaa Sidaamo Walayta Arri Koficho Kafa Yam Gambela Tambaro Alaba Gamo Gofa dhammaan dadka la isku yimid mogtay hayeeshe iyadoo sidii ay tahay oo
xagxaganta sarsaran ta xiirxiiranta cagaaganta oo dawadata tacalaalata waxoo dhanba dee ninba giirgiir uu leeyahay oo wada giirgiir leeyahay la wada yimiday dhammaan dadkii oo dhan markay meesha yimaadeen waa tii goojooyin loo dhisay xafladii waa la diyaar garoobay martidiiba aad u soo dhaweysay inaan xariifo oo markaa meelaha ku qoraa soo dhaweynta isaguna martoo dhex boodayay ayaa gabadheer oo dhuuban oo madax yar oo indha cascas oo sarsaran oo qaawan oo naaska kookada ku furaysa adag nacam gebigeeduba ayaad yaabaysid ayuu jeclaaday gabadhii laysma afgaranayo gabadha wax alla wax la iska afgaranaya ma jira ninkani dee siduu u garabooday unbuu baysiidhi tanaad ka dayactiran moogta way jaban tahay qiimo jabanoo malaha dad 2,000 oo riyaal ku bixisa dayactir fudud mana xanuunsanaysa shaybaadhno baana durayno kuma dhaco siday u socotay adu kolkii dambe magaceed waa ta la soo kaxiyey gabadhii marka la soo kaxiyey baa layidhi hala meheriyo wadankeediina dee kolley wax dee cunto xaflad lagu diyaarayn la garan maayo mooye adu lafa iyo adu waxbaa lagu diyaariyey say u dhannayd gabadhii baa layidhi bas sheekhii baa ku yidhi magacaagii baan bas inaan qoran rabnaa si laguu meheriyo magaceeduna aad buu dheeraayo dee meel lagu qabto waa la garan waaya magacaagu sheega markaas mamoodira itohii karito oodi acuudu billaahi min ashaytaan rajim yaa haye sheekhu carabi ku qoraya weliba mamoodira itohii karito oodi buu yidhi qoray aabbahaana bushamuraanjada eetibit acuudu billaahi min awowgaana baa la yidhi shulluka shaamba waa kanad boqor waa kani si alla si loo qoray aabbaha wuxuu ku awowga uu yeedhin uma yeedhi karno ma odhan karno oday dee weyn oo gacala inaad tira waa dhib badan tahay magtahay kolka gabadhii waa wuxuu yidhi markii dambe dee magacaagabay magaciisiiba cashir noqday in buug lagu qoro kombyutar lagu qoro gebigeediiba aduu aakhirkii dhar yar buu iibiyey uu dayactirtay cuntadii baa la isku afgarin waaya markii dambe sidii baa lagu diray deegaankeena luuqado badan baa laga hadlaayo codka unbaa kala duwan toonka unbaa kala duwan nokia toon baa jira china toon baa jira waxa samsangi toonka baa jira mise toon baa jira markaa waa toonka un aryaahe roobkii dee rag loo sheegi jiray soo mahayn waxaa jiray maad garanaysaa budada la gelgelinayaan ku gartay garaabada tuulan baan ku gartay gibida aadu oodan baan ku gartay garaadka u yeedhadaan ku gartay waa hees boogtay nama wiil gaaban baa ku guursaday wey mogta marka waa budada la gelgelinayaan ku gartay garaabada tuulan baan ku gartay garaadka u yeedhadaan ku gartay waa intaas la isku yeedhay mogtay sidii nalka adari nuur badanay nimcoy nuuradoo kalaa tahay caddi darteed caddaanka ayahayd moogtahay markaa waxaa la yidhi naag baa caana iibinaysay oo dhowr nin oo mirqaansashay oo dukaan weyn oo caana haysatay disti weyn baa caanaha ku shubtaa caana geel caana adhi caana lo saddexdaba disti keliya ku wada shubtay ile hal distiba ku wada jiraan kolba nin baynu caana geel madaysa haa way u dartaawn nin markaa mirqaansan baa jiray oo isagu intuu koobka loogu shubay ku hor cabayo oo daawanayoun inan kalaa yimid caana adhi wala laga iibi haa walaal caanahanun bay u dartaa distida waa niya waa sidii saddexdii caanaba halkan ka dartay distidan ka dartay way yaaban yahay kolkaa ilaa way kala xadhaa caanaha adhigu dhexdu ku jiraabaan malinka geel noo cidhif uu yahay waa isla distidown way qiyaastay kolkaasuu intuu soo yarkacay ku yidhi walaal dee saddexdan distidaba saddexdiiba halkan bad ka dartay maxaad u jeedaa waar oho ku dhan bay tira awriyo inta saa ku shubtay biyo ninkii isagii baa yaabay oo fakaday ile meel waa la wadeebiya nin waliba niyadiisa wuxuu ka dhigtun bay ahayd caanuhu nin waliba niyadiisa wuxuu ka dhigtun bay waxaa la yidhi nin baa dhoofayay oo dibaddu tegey ilkaa xanuunay dhowr iyo 30 jir uu ahaa dhakhtarkan dee yurub baa la geeyey dhakhtar maadaama kombyutar da'diyo wax sheega jiro waa la baadhay ilkihii baa kombyutar la saaray ilkihii baa noqday 250 jir 250 jir bay ilkihii noqdeen ilkihii baa ka da'weynaaday isagii kolkaasay dhakhaatiirta ku wareerto meelkii awowgaa baad sidataa baa layidhi waa la rogrogay kolkii dambe show uu ku qayili jirayoo kilomitarkii qori jireenoo laba cimrigiisii way ka dheeraysayeen qayilkii marka aad iyo aad baad mahadsantihiin dhaantadu way sii socon gabayguu sii socon heestuu sii socon laajadii baa ku hadhay injineer cabdisamed haddii aan tusaale yar soo qaadanno
in Cabdullaahi waa loo dayaa lay dayahay wuu jarraaqday micnaha inaad laajadiisa u soo wareejiso luwajadu kullay way farabadinoo deegaankuna aad buu u weyn yahay oo waxaanu ka soo bilownay Shiniile waynagii dhulka soo maray aad buu farabadnayn marka luqadu oo kolka xagga la tago kale waxay ahayd waa kiisa 7 nin ay bambada heleen ay ku ciyaarayeen waraalaale how maydhane rabiila waa kuwan iyagoo eegay baashi ku qaraxday bawaytay markaasuu mid ka dhaxkacay barko yanaqanayo niqwayna amoyna muumin dhul baa u dhacay araw taragal liqday maayo wax ya kawde waa rabiile how ta cuntay kolka waynagii hoos soo soconay aanu ilo leeyahay mobilku telefoonko yaanu ila oole waxa la yiri odayba waxa la yiri marka wuxuu sameeyay mobile ba waxa la yiri ka lumay mobilkii marka shawr lacag bu ku ritay kolkaas uu yiri mobilka 10 riyaal baan ku jabiyo uu ku riday mogta 10 baan ku jabiyay aanu ila oolay oo maxaa ku geey faduulunhe aboy 60 waatan Axmed waa xabad kibisa kama dandamin waxa ka lunta 30 riyaal waa 60 shilin mogto tuuga hadii la jafaqo ileen waxan uu dayn lahaa kawde saacad bay waati xamiidadii saacad lahayd baan nooliga keen baa leeyay baabuur fuushan nooliga keen tusha shariif fuushan tahay oo luki baa ku xidhan wax walba ku xidhan وأني وانقارين كياب هدو حتى رقم حكومة النقدان ويك عانو سولة يقف كعاق موجوده وفولون ويفول بابو أنتو بوركا صوت عايز ركروجي نيم ولي بوركم بقدر تحكي أخبار آير ودو فولون ما تشابه عدنا حمل نقط إن حميدة دي ساعات العيد بان ولا لأنه ما دني جرني ساعات اللوك تكو حلين جرت الليل ساعات بكتره كل كاسة واحد عي waxa la qosh badan intay qoysay bay habeenkii dhimatay show ilaa intay qosh badan qoysay bay naftu ka baxday uma loo deewa ka taxsiib abarorti la fadhiistay ninku halkan ka calacalaya ahay xamiid ha dhimatay sarciga khasaara igaga daran bal waxay qoshka isagu wuxuu ooyaa qoshkan khasaara yaa dubi bule bal yaa dubi waa kan bal joogay ma xalay iska daysa day go'ayso وين سوس عنا وينجي صومري حاجة إيو فيق صومري أرباد لولي أرباد ديجي أرباد ديجي أرماد أمي كتم بقادي إن وينجي حاجة هتنوع عني إن كيتي ما وينادي إن كي شارك عسى تقدر تلعب هذا كل قاي وبعد شيء قدون شيء إن وينك هذا نوصبنا وارياه يقول لي بالله ده قاس كيف أيوك عيو يا هرسومات قرن هرت إله بين دي لا يد دون ذو محاصيل تكون دي وبدني هذا سيطور تركاي دي ده تقول قاتل دي مسكحة قد كامل يا هرت دين تبرك أنت دور قدالين دي بدنا بكاجدي مركا حال كان واحد كجرا فوري راني شاني واشارك كل كه هتنا هالكينو سي مررت أحمد بدل باق نودي باور كتير والكوداي نسيس عنوات سيد هذا عدين وحين أوجد من حاجة هي اللي بان سومين وحين ندي بشار مركز كعيس هيجي كعين وانس لكعيناي وانس راعينا هيجي تجي وانس راعينا بي مكتا وكودا وانس راعينا مركز تجي سو وانس راعيناي هيجي تجي بشار كعد مركز كعيس هيجي كعين وانس لكعيناي waxa kale jiray xagga waxaan soo maray baheed anoo meelo xiriso maaha anoo meelo saamara masaajkan jeed salaad saamuri may way daagay waa ilaa qallaf Soomayn liisan hay qandaraas baday ayuu Sooma nin oo weyn oo odi ah oo duqay soo fiiq qarlaafeed xagga u dhaaf waxaynu maray xagga iyo afdheer baan tagnay Sooma waxa la yidhi dib u curashadii afdheer markii lagu qoray show Shiniila nin Shiniila lagu qoray
afdheer hudheel buu galay cuntu dalbaday wuu fadhiistay cuntadii markuu cunayay ayuu ninkii mutalabka dul yimidoo dhacaan ma kugu daraa buu yidhi show dhacaan xaggaana waxyaabaha boogta iyo waxba loogu yaqaan kolkaasuu qaacay kolkaasuu waar muxuu waar dhacaan marka waa isfahan la'aantii waxaa la yidhi kalluun waxaa la yidhi waxaa ka lumay wiil baa ka allaabo malaa tahriibtii waxbuu ka raacay kolkaasaa la yidhi wuxuu ku xidhan yahay liibiya kolkaasaa loo sheegay odayg kolkaasuu yidhi xadhigdaa hadalkiiye kalluun afkaa lagaga guro buu yidhi kalluunka waxun buu moodayay markaa moogtahay kalluun afkaa lagu guro leh meel xaggaas waxaa jirta budadka tuulo waxaa jirta budadka lagu iibiyo budka waarwaa sodoh waabiyo sodoh waabiyo sodoh iyo waarwaa sodoka nixiyo sodoka nixiyo waaryo isa loo xaysinaysaa budad yaroo gaagaaban ku qallooca ku dheer ku gaaban dhowr bud oo nooco rag budad iibinaya dalkaysa waarwaa sodoh waabiyo sodoh gabiye sodoh gabiye sodoh gabiye waa la leeyahay moogtahay injineer axmed waad ku mahadsan tahay wakhtiga oo kaa dhammaaday xaggayga waxaan ku leeyahay ma aad gudbin waad iska fadhiisan kartaa inaan gudbaba uma iman